munaasabad si heer sare loo soo agaasimay isla markaana ay soo qaban qaabiyeen ururka horumarinta cilmiga iyo aqliga ee loo soo gaabiyo aadko ayaa waxay munaasabad ku soo marti qaadeen 6 abwaan oo kamid ah abwaanada dhalinta ee ku dhaqan guud ahaanba dalkani Somaliland munaasabadani ayaa waxa lagu soo bandhigayay maansooyinka kala duwan ee uriyeen abwaanadani waqti xaadirkaasi munaasabadani ayaa waxa ka soo qayb galay iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socda labada shirkadood ee Telesom iyo Somtel munaasabadani ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay gudoomiyaha ururka aadko isagoona faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay ururka aadko iyo waxyaabaha dadka uu qabto iyo sidoo kale aasaaskii akademiyada aadko insha Allah wayna soo socon doonaan kulamo soo kulanka hal abuurada la moodan habeenka caafimaadka ee kulanka دكتورada inoo soo socon doona insha Allah kulanka qoraayada barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij taxana qaybta caafimaadka qaybta siyaasadda qaybta qoraaga waliba qof kaliya tamaha oo wafti wada socda sida halaburada quruxda badan leh ee maasooyinka quruxda badan leh ayay insha Allah cid walba marti qaadno hadu jeclaan doontiin gruubka ku xigana insha Allah project baan ugu nabi doonaa dibadda hadii la dadku ka buuxsamay intaasi kadib ayaa waxa loo guda galay caweyska 6 abwaan ee soo marti qaadeen akademiyada aadko iyagoona waqti xaadirkaasi soo bandhigay imaasooyin kala duwan ayaa waxa kamid ah imaasooyinkii waqtigaasi ay soo bandhigeen waxba ay heelay gubay waxba ay ugu shiday hanfiga waxba ay damqoon la huray waxba ay hibashada qasbo ilmada iga hooriyo aniga ugu diray helay waxaan maqlay hadal qariiban hilayga maansada ka furay waxaan arkayaa haaco hantida noqday reer galbeed la yaabkan la yaabay hadaad adiguna la yaabto la yaabka waxa la haaday la yaabadan kii u yeeray kii u horay naftaydu qofay la yaabtay markay ka yaabtay u yaabtay markay la yaabtay ayaa la yaabtay u yaabtay markay la yaabtay ayaan wali ruux la yaaban la arag lana maqal la yaabiyo ararta gabay iyo murtida ayar curinteeda intan dhowba waatan ka haray erayadiisiye maalkumo haddii aanan helin inaan tiigsadoye mar haddaan alkumo oon murtida dhawcaasibana ujeeddada halkaan uga socdaan kaan baa qaadaye ayara murqaaliyaan idin ogeysiine yaxyow curintiya haldeeqa hibaad kuba laran codkaaga markaad asar tiri gudmaanso maxaa quri laanta jooga cindigu wuu kula fahmaayay cishaa imtixaan abuuray waxaan cabashada ku gooyay caqligu ku xisaabtan goostay maxaa caqli laanta yaala cidii fahmi leed la waayay taasi talo maduniya ma degma macaasha mutadariska taala ma asmaa ma deeqa ma taadeerinaysa talo dahayba may noqon hiba degan miyay tahay adduunyada waxa u daran kolku dooxo ka luma madashan aadka oo quruxda badan leeyno soo diyaariyeen wana hambalyeynaya abwaanada madashan ka soo qayb galay abwaanadu iskuma jiraan qof kastaaba qof buu jecel yahay oo dhageysta suugaantiisa anigu suugaantii horan aad u jecelahay oo xiiseeya abwaananan hore u arag ayaan madashan ku arkay oo aad baan ula dhacay runtii gabaygiisa waana ku faraxsanahay inuu adko soo bandhigo aan baranay aweenada ma hadda yaraadaan qofka kale iska hadla dad iska ciyaarayaan runtii walaalka ayaa la iyo ururka adko horta marka horeysa waan mahad celinayaa isku soo wada duuba munaasabadani ayaa waxayd munaasabad ballaaran oo si buuxda uga qayb qaatay gudoomiyaha akademiyada aadko waa Cabdilaahi Daahir Ways telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV magaalada Boorama